Hubiyo Godan mid ka mid ah degmooyinka ugu facaweyn gobolka Mudug iyo guud ahaan dalka baraarug bulsho iyo ifafaalo horumarineed oo ku wajahan dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ayaa bilow ah balse bulshada ku nool magaaladan xeebta dhacda waxaa dhibaato ka haysata helidda adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha caafimaadkuna ugu horeeyo marwada koowaad ee qaranka Marwe Seynab Cabdi Macallim oo ay damqisay duruufta caafimaad ee halkan ka jirta ayaa bilowday dadaal xoogan oo lagu gurmanayo bulshada dhibaatooyinka caafimaad ku wajahaya Hobyo marwada koowaad ee qaranka Seynab Cabdi Macallim kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Mudane Cali Daahir Ciid iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa wadajir u dhagax dhigay dhismaha cusbitaal si bilaash ugu adeegi doona hooyada iyo dhallaanka waxaana mashruucan fulinaysa hay'adda Seynab Macallim Foundation oo kaashanaysa hay'adda Qadar Charity sharaf ah inaan maanta halkan iskugu nimaadno si aan u dhagax dhigno xarun caafimaad oo lagu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku nool degmada taariikhiga ah ee Hobyo iyo nawaaxigeeda mudanayaal iyo marwooyin waxa inaan xaruntan hooyadii dhallaanka u istaago igu dhaliyay kadib markii ay soo gaareen dhibaatooyin caafimaad ay la kulmaan hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed inkastoo oo qorsheygu yahay inaan xarumahan ka hirgeliyo gobollo badan oo dalka ka mid ah haddana waxaa sharaf ah inaan anigoo ka faa'iideysanayo fariintii haweenka Hobyo ay u soo dhiibeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed inay noo suura gashay inaan xaruntii ugu horeysay ee noocaan ah aan ka hirgeliyo degmada Hobyo mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan si gaar ah u bogaadiyo uguna mahadceliyo hay'adda Qadar Charity oo runtii garab istaagtay inay ila hirgeliso mashruucan aan ugu talagalnay hooyadii dhallaanka waxaa kale oo mahad u celinayaa xafiiska mashaariicda madaxtooyada iyo howlwadeennada hay'adda Seynab Macallim Foundation waxaan rabaa inaan la dardaarmo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool degmada Hobyo iyo nawaaxigeeda xaruntan adinka ayaa iska leh waxa loo dhisay in lagu daryeelo dumarkiina iyo caruurtiina sidaas awgeed waxaan si gaar ah inkaaga codsanayaa inaad dhammaantiin garab istaagtaan oo aad taabagelisaan xarunta iyo waliba daryeelideeda gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed oo ah madaaliyaasha qaranka kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Mudane Cali Daahir Ciid ayaa go'aanka marwada koowaad ee dalka ee hirgelinta xaruntan caafimaad ku tilmaamay mid hortabin u leh dadaalada heer qaran ee ku wajahan badbaadinta hooyada iyo dhallaanka ka maamul ahaanna uu ka saacidayo qorshayaasha waqtiyeysan ee wax looga qabanayo baahiyaha bulsho ee deegaanada ka jira hooyada iyo dhallaanka in loo dhiso xarumo lagu daryeelo caafimaadka iyo waxbarashada muhiimad gaar ah ay Galmudug u leedahay marwada iyo organizationkeeda waa u mahad celinaynaa halkan kaliya ma ahan inay wax ka qabtaan barawana waa ogeyn sool iyo sanaag iyo gobollo kalena waa ognaay inay ka socoto shaqo fiican marwada waa soo dhaweynaynaa shaqada qiimaha leh ee qaranka u hayso xildhibaan Ubax Tahliil oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay gobolka Mudug ayaa marwada uga mahad celiyay garashadeeda ku aadan in xaruntan caafimaad ay ka dhagax dhigto degmada Hobyo ee gobolka Mudug waxaan u mahad celinayaa walaashay First Lady-deena gabar qaaliya Seynab oo ka mid ah gabdhaha reer Galmudug oo horeysa inay maanta nolol joogto oo ay garabkeena taagan tahay dhismaha la dhigay maanta dhagax dhigeedu uu yahay waxa la rabaa in la taageero waxa la rabaa qof walba qoriga meeshuu yaalo inuu ka qaado waxaan hoos u maqlay hadda in week dambe dhismaha bilaabi doono insha Allah oo bilaabi doono haddii Ilaahay yiraahdo marka marwo waxaan nagu leedahay abaal aan dhamaanayn ugu dambeyn marwada koowaad ee qaranka Marwe Seynab Cabdi Macallim ayaa shahaado sharaf guddoonsiisay Abshir Diine Cawaale oo ah muwaadinka bixiyay dhulka laga dhisayo cusbitaalka maanta Hobyo laga dhagax dhigay Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka degmada Hobyo.